8 January 2019 goor duhur ka rogan galabna aan la gaarin ayaa loo doortay Siciid Cabdullaahi Dani madaxweynimada Puntland waxa uu bilaabatay maalmo dhan 1825 tirsigoodu yahay waa 5 gu oo xilhayn ah waxa soo dhamaatay xilligaasi maalmihii ololaha doorashada waxaan kaloo jeclaystay in 5 sano oo soo socota dadkeennu ay bartaan isla xisaabtanka dadkeennu ay bartaan inay dawladnimada qayb ka ahaadaan dadkeennu ay bartaan inay madaxdooda wax ay kula xisaabtamaan ay haystaan marka qorshahan maadaama uu qoran yahay waxaan rajayn doonaa inuu noqdo qorsho la igu xisaabin doono haddii Ilaahay xilka igu guuleeyo oo markhaanti noqon doono on hadal aan noqonayn Siciid Dani hadda waxa uu marayaa 2 sano oo madaxtinimada Puntland uu hayo waxaynu qiimeyn ku samayn doonaa rajadii laga filayay ma rumeeyay mise geediga abaar ayuu ku furay Siciid Dani macalinka ay dadka Puntland sida weyn u wada garanayaan waxa uu ololihiisa ku bilaabay ka sheekaynta ammaanka noolaynta iyo dib u celinta boosaaso dimuqraadiyadda iyo xornimo hadalka tayeynta hay'adaha dawladda iyo tiigsiga yoolasha dawladnimo wadaadka qunyar socodka ahaa bilowgii ee gadaal siyaasiga noqday ma lahayn sooyaal siyaasadeed oo Puntland gudaheeda ah marka laga reebo hal mar oo uu soo noqday wasiir ka tirsan xukuumadda federaalka iyo mudane baarlamaan kana soo shaqeeyay xamar balse aqoonta iyo waayo-aragnimadiisa ganacsi waxa loo arkayay inuu dhaami doono maamuladii isaga dambeeyay ee Puntland waxa uu xilka yimid Siciid Dani ayadoo quus laga taagan yahay maamulka waxaana maamuladii isaga dambeeyay lagu eedeynayay musuqmaasuq hantida oo looga taag waayay boob qoys iyo ku takrifal awoodeed shacabkuna waxay naawilayaan badbaado iyo bedel baraaro u horseeda aan eegna 5 tiir oo ballanqaadkii madaxweynaha waxaan rabnaa dhinaca siyaasadda inaan tayeyno oo waqti badan gelino ururada rayidka ah oo ah meesha lafdhabarta u ah horumarka iyo isbeddelka ummadeed waxaan rabnaa inaan xorriyad badan siino saxaafadda iyo waxa ay ku halmaanaan inay ilaaliyaan dalkan meesha u socdo ururada rayidka ah waxaan rajaynaynaa inay qaybahooda kala duwan ay ka qayb qaadan doonaan horumarka bulshada iyo dalka waxaana caddayn doonnaa insha Allah inaan siin doono kaalin weyn iyo baahidooda waxa ku aadan inaan kala shaqayn doono yoolka koobaadi waa xorriyadda hadalka iyo ixtiraamidda kala aragti duwanaanshaha Dani xukuumaddiisu waxay ka mid noqotay liiska furan ee madaxdii ka horeysay ee aan dhaliisha u dulqaadan waxa uu noqday madaxweynihii ugu horeeyay ee su'aal xildhibaan goodi kaga jawaabay waxa tirabeel noqday dadka loo caburiyo hadalka kuwa loo xirayo qoraalada Facebooka iyo kuwa loo tarxiilo aragtiyadooda wariyaasha warka tabiya ayaa xabsiga daris la noqday jeelashuna waxay hoon noqdeen cid kasta oo ka aragti duwan madaxweynaha bishan waxa garoowa meel aan la aqoon wali kaga xiran mid ka mid ah wariyaasha Puntland waana dhacdo caqabad iyo dabar ku ah ballanqaadkii xorriyadda saxaafadda ee madaxweyne Dani xukunka iyo maamul wanaagga waa yoolka labaad wadaagga dawladnimada iyo wax wada lahaanshaha Puntland dadkeeda ayaa ah mid ka ranraadhan muddooyinkii u dambeeyay Danina toobiyihii darnaa ayuu dariiqii hore u sii qaaday 18 wasaaradda agaasimayaashooda gobolada Sool iyo Sanaag min hal xabad ayay ku leeyihiin waa saamigii ugu yaraa ee abid soo mara Puntland wadaantusa waxa ay sii go'day markii wasaaradaha amniga maaliyadda gudaha ilaa madaxtooyada ay isku hal deegaan qaatay waana taariikh cusub markii ugu horeysay ee Puntland maamul ahaan Puntland madaxweyne Dani waxa ay wali maarayn laadahay bedelista boosas bannaan tan iyo markii uu xilka qabtay agaasimayaal wasiirra laga dhigay oo ayaan la bedelin kuwa dhintay boosaskood ayaa la magacaabin kuwa iscasilanay lama buuxin jagooyinkooda madaxweynaha dhanka waxa lagu xasuusan doonaa 2 sano kadib inuusan maamulkiisa iyo kiigaas ay shuraaka ku yihiin xagga saxiixa waxaan kaloo rabaa inaan inii cadeyno dhinaca dhaqaalaha kobcintiisa in aan ahmiyad weyn saarayno dhaqaalaha kobcintiisa iyo lacagta ururinteeda farqiga u dhaxeeya dalkan haddaan dhaqaalihiisa dihin la soo saarin haddaan shaqo abuur la samayn haddii aanan khayraadkiisa la manaafacaadsan dad canshuur laga qaado ma jiri doonaan dadku markay xoolo helaan ayaa dawladdu waajib ku tahay inay canshuur ka qaado
islaamku waa ogtihiin dadku hadduu faqriya sakada kama qaado waxaad ogtihiin dadaan waxba haysan in maalin walba canshuur keena la yidhaahdo askar qoryo sidata dukaamo aan wax laga gadin 24 saac in la haysto waa ceeb waxaa dawladda saaran inay dhaqaalaha ummadda kor u qaado si ay u bixiyaan canshuuraha ku waajibo dawladdana adeegyada ku habboon ay u gudato qodobka saddexaad waa dhaqaalaha iyo ganacsiga si cad ayuu u sheegay madaxweyne Dani siyaasad qayaxan oo qeexaysa nidaamka dhaqaale korinaysa dakhliga ilaalinaysana hantida dadweyne intii uu xukunka joogay waxaa dhacay sicir bararkii ugu weynaa ee Puntland $100 waxa uu gaaray 5 milyan oo shilinka Soomaaliga ah waana abid markii ugu horeysay Puntland waxa istaagay qaadashada shilinka Soomaaliga dad ayaa la wariyay inay gaajo u dhinteen waxa masalufay ganacsato dhowr jeer oo ay dawladdu xal keentay ma dhaqan gelin cidii mas'uuliyadda lahaydna ciqaab lama marsiin xaalkuna waa afsalax ku dhig marka laga eego qodobka yoolka dhaqaalaha iyo lacagta ee madaxweynuhu uu bilowgii yoolashiisa ku daray mushaarka ciidamada iyo shaqaalaha ayaa si toos u baxa tan iyo intii uu xafiiska yimid madaxweynaha balse dhaqaalaha dadweynaha ayuu maareyn leeyahay Dani iyo dawladdiisuba dhaqaaqa dekada Boosaaso ayaa meel hoose gaadhay xafaarad ayaa loo waayay tiro 3 jeer ayay ganacsato u diiday inay wax kala soo degaan welina lama hayo xal rasmi ah oo dekadu leedahay amniga iyo nabadgelyada ayaa ka mid ahayd yoolka afraad ee madaxweynaha yoolashiisa kuwa ugu muhiimsan ka mid ahayd inta uu xilka haya madaxweyne Dani 2 sano waxaa dhacay dilal waaweyn 2 gudoomiye gobol ayaa la qarxiyay madaxii shirkadda DP World ayaa bilowga xukunka la khaarijiyay weli maxkamad looma soo taagin kuwii gobolfaladaasi geystay lamana ciqaabin madaxweynuhu waxa uu ka dhabeeyay ballanqaadkiisa ku saabsanaa dhisidda ciidan tirsan xuquuqda hela inta uu xilka haya 2 sanadood waxaa yaraaday dilalka qorshaysan ee Boosaaso xarunta ganacsiga ee Puntland waxa uu kor u qaaday daryeelka iyo xuquuqda askarta waana shaqo haddii la joogteeyo ayaamaha dambe lagu xasuusan doono maalmihii xilhaynta ee Siciidani dhinaca maamul wanaagga waxaa saldhig u ah kala qaybsanaanta hay'adaha dawladda ee ku xardhan dastuurkeenna waxaa nasiib darro ah in wixii la qoray ama lagu heshiiyey ay noqdaan waxyaabo afka baarkiisa ah oo madaxdu ay noqoto inay siday doonaan la jiifiyaano bannaan uga dhigaan waxaan rajaynaynaa dawladdan 5 sano soo socoto inay dhidibada u aasto wixii ku qornaa dastuurka dadkuna ku heshiiyey oo ah dawlad leh hay'ado iskorjoogteeya oo kala saaran qodobka shanaad waa isla xisaabtanka iyo mucaaradnimada hay'adaha dawladda gudaheeda yaa la xisaabtamaya dawlad aqalka baarlamaanka weerartay gudoomiyihii xabad kaga saartay Garowe yaa mucaaradaya dawlad xildhibaankii su'aal weydiisa talaaba ka qaadis loogu goodinayo yaa la xisaabtamaya dawlad xildhibaanadii xisaab celinta dalbada xasaanaadka xayuubin lagu sameeyay 2 sano waxay ugu dhamaanaysaa madaxweyne Dani oo aan lahayn mucaarad awooda inay madal ka dhaliilaan sababtuna waa iyagoo xil sugayaal ah ama xabsi iyo xabad ka cabsanaya diiwaanka kale ee xagga nidaamka dawladeed iyo isla xisaabtanka waxaa madaxweyne Dani u diiwaan gashan madaxweynihii u horeeyay ee ku xigeenkiisa si cad oo muuqata ay isku khilaafaan idaacadahana ay isaga jawaabaan Dani 2 sano ee dhamaatay waxa uu si fiican u abaabulay xaflado iyo cashooyin uu isku maamuuso madaxda Soomaalida ku marti qaado Garowana waxa ay noqotay caasimadda hawagadiska laga helo tamashlaha siyaasadeedna loo tago shaqada ugu weyn ee maamulkiisa hadda hortaala 3 sano ee soo socota waa isku haynta Puntland oo uu yimid ayadoo is haysata madaxweynuhu ma sii hayn doonaa maareynta waqtiga kala guurka ee federaalka iyo meelmarinta shilinka Soomaaliga u muuqda mid eersan doona maamulkiisa waana caqabadaha waaweyn ee ilaa iyo hadda hortaagan